السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada maanta waxaan jeclaystay la wadaago filim lagu magacaabo Six Underground oo action American ah marka soo dhawaada iskana taxadar aqyaare filimku wuxuu ku bilaabanayaa atooraha oo la kulmaya generaalkiisa ama taliyihiisa ciidanka halkaasna wuxuu ku soo qaadanayaa mission ama hool lagu burburinayo kaliya ka jira wadanka Turkistan isla markiiba atooraha wuxuu ku qasbanaanayaa inuu raadiyo rag takhasus u leh howlaha burburinta iyo wax dilida halkaas ayuu wuxuuna ku helayaa 5 qofood 3 wiil iyo 2 gabdhood waxayna ku kulmayaan gobolka Mareykanka ee loo yaqaan California ayagoo qaadanaya meeting albaabada u xiran yahay halkaasna ku dejinaya qadadii looga takhalusi lahaa kaliya ku nool Turkistan kadib markii uu dhamaado meetingkoodii halkaas ayay waxay ku soo saarayaan atoorayaasha qadadii ay uga takhalusi lahaayeen kaliya ayagoo go'aansanaya in step by step ama howlba howsha ka horeysa loo qabto howshiisa waxaana isla markii isla soo qaadayaan in gacanta lagu dhigo walaalka dictatorka ninkaas oo ah nin fiican aadna u jecel in wadanka looga taliyo habka dimuqraadiga ah si ay u helaan ninkaas meesha uu ku sugan yahay waxay FBI da xog ahaan u helayaan in 4 janaal oo ka tirsan dictatorka dalka Turkistan ay si dalxiis ay ku imaadeen gobolka California ayna ka degan yihiin hotel kamid ah hoteelada ku yaala gobolka California isla markiiba atoorayaasha waxay dejinayaan qadadii ay ku booqan lahaayeen meeshaas ayadoo aan la aqoonsan halkaasna ay ku dil lahaayeen 4 jeneraal xogta wiilkana ay ku heli lahaayeen atooraha koowaad ayaa wadanaya 2 atoora hal gabar iyo hal wiil ayagoo halkaas uga dhaqaaqaya sidii ay ku soo afjar lahaayeen 4 jeneraal ay ku sugan hotel gabadha iyo wiilka atoorayaasha ayaa go'aansanaya inay iska dhigaan dad ka shaqeeya hotelka ayagoo albaabka koowaad ka gali doona ayagoo iska dhigaya inay wax u wadaan qolka ay joogaan generaalada dagaal dheer ka bacdi halkaas ayaa waxa looga takhalusayaa 3 jeneraal ayadoo ay soo reebanayaan generaalka ugu dhow ninka dictatorka ay ka taliya Turkistan si ay u weydiiyaan xog walaalka Turkistanka ninka ka taliya dhashay asaga ayaan iska dhigi doona in uusan xog helin laakiin kadib dhibaato weyn ee la gaarsiiyay wuxuu ku qasbanaa doonaa inuu sheego wuxuu u sheegi doonaa in walaalka lagu haayo Hong Kong hotel ku yaalo markii information lagu ogaadana waxa laga takhalusi doonaa generaalka halkaas ayaa waxa ku dhamaan doono 4 jeneraal sheekadooda filimkuna wuxuu ka tagi doonaa dalka Mareykanka waxaana uu boqoli doonaa halkaas Hong Kong kadib markii ay ka soo degaan wadanka Hong Kong halkaas ayaa waxa lagu dejinayaa qidadii looga soo badbaadin lahaa walaalka dictatorka hotelka uu ka degan yahay caasimada wadanka Hong Kong khibrada ay ka wataan ciidamada iyo sidoo kale hanaanka ay ku dagaalami doonaan ciidamada laadarka ayaa waxa ay ka dhigaysaa qaybta ugu adag ee la isku qaabili doono halkaani laakiin maadaama atooru uu soo xusho dad khibradaas aad u leh wuxuu deji doonaa shax ku saabsan qaabkii loo dumi lahaa halkaasna looga soo badbaadin lahaa walaalka dictatorka atooraha ayaa u qaybinaya asxaabtiisa 3 qaybood 2 qayb oo kamid ah wiil iyo gabar ayuu wuxuu u diri doonaa inay hotelka iridda koowaad ka soo galaan ayagoo wata baawur Mercedes afkan uu xiran yahay halkaasna isticmaali doona sultanka ilmaysiisa halkaasna gudaha ay u gali doonaan halka atooraha madowga ah ee sniperka uu saari doona qaybta wiishka ah asoo kor ka tooga doona wax kasta oo dhaqaaqooda loo beeg waayo halka dhinaca kale atooraha qusaaga hay atooraha ugu yar uu meesha hoose ama barkada hoosteeda ka gali doona asagoo meesha signalka dhan ee isku la xiriir lahayn ciidanka ka jari doona halka atooraha weyn uu ku sameey doona awood ahaan inuu kor ka ilaaliyo ciidanka asagoo ka fiirinaya wax kasta oo keeni kara dhabar jab dagaal aad iyo aad u qaraar kadib waxa u suurtagelaysa atoorayaasha in walaalka dictatorka ay ka soo badbaadiyaan ayagoo 4 banaankan ay u soo saaraan laakiin nasiib darro atooraha sniperka iyo atooraha qusaaga ayaa gudaha ku hari doona ayagoo dagaal dheer ka bacdi atooraha sniperka uu fursad u heli doono inuu uga soo cararo hotelka maadaama missionka lagu guuleystay laakiin nasiib darro atooraha qusaaga iyo kaabalaadarka weynka xoog badan ayaa dabaqa korkiisa isku qabsan doona halkaasna dagaal qaraar ayaa ku dhaxmari doona oo looga itaal roonaa doona atooraha qusaaga halkaas markii sheekadu marayso atoorayaasha ayaa ku murmi doona inay tagaan iyo in ninka saaxiibkooda soo badbaadiyo halka atooraha kuwada soo jeedinayo in laga tago maadaama missionka muhiimadiisa lagu guuleystay laakiin labada atoora kale ayaa ku maandhaafaya halka atooraha sniperka uu banaanka u baxayo si uu soo badbaadiyo asxaabkiisa
halkaas ayuu wuxuuna ka arkayaa dabaqa sare iyadoo laga soo tuuri rabo atooraha yarka ee qusaaga ah, laakiin nasiib wanaag maadaama uu yahay nin sniper ku fiican, halkaas ayuu wuxuu ku tooganayaa laadarka weynka ah. halkaas ayayna waxay kusoo gurya noqonayaan ayagoo badbaaday, mishinkina ku guuleystay, waxayna toos u soo aadi doonaan wadanka loo yaqaano Turkistan. kadib markay soo caga dhigtaan wadanka Turkistan, atooraha iyo asxaabtiisa ayaa deji doona qidad aad iyo aad ugu muhiimsan in wadan lala afgambiyo ama la qabsado, ayagoo toos u abaari doona meel kastoo dictatorka uu kala xiriiro shacab weynaha wadanka Turkistan, ayagoo la wareegi doono wasaaradda warfaafinta, satellite-ka wadanka, iyo sidoo kale TV-yada wadanka iyo idaacad kasta oo ku hadasha codka dowladda. si arrintaas loo sameeyo, atoorayaasha ayaa iskala qeybi doona atooraha weyn iyo atooraha sniper-ka ama atooraha madowga ayaa toos waxay u aadi doonaan qaybta satellite-ka laga xukumo. sidoo kale qaybta iyada waxaa aad iyo aad ula wareegi doona oo satellite-ka dhanba bedeli doona atooraha qusaaga ah, halka aktarada kale soo harana kor ay ka ilaali doonaan ay la socon doonaan haddii wax ciidan dhaqaaqa ay jiraan. dadaal dheer ka bacdi waxaa aad iyo aad ugu suurtagelaysa atoorayaasha inay aad iyo aad ula wareegaan dhammaan meelihii ay dowladdu kala xiriiri jirtay shacabkeeda. markii arrintaas ay soo dhameeyaan, waxaa la diyaarin doonaa khudbad aad iyo aad u qiimo sareyso, halkaasna waxaa kula hadli doona shacab weynaha Turkistan walaalka dictatorka, asagoo u jeedi doono khudbad xamaasad leh, halkaasna ugu sheegi doono in dadku ay yihiin saacadan laga bilaabo dad xor ah, wadankana dowladda ay ka dhalatay dimuqraadi ah, meesha ay ku arkaan ciidamada dowladdana ama taliska dictatorkana xilifaha ay u qaadaan. halkaasna waxaa kusoo dhammaanaya maamulka dictatorka, halkaasna wuxuu ka geli doonaa dictatorku inuu iskaga cararo wadanka. kadib markii dictatorka maamulkiisa laga takhaluso, dictatorka ayaa ku qasbanaan doona inuu wadanka iskaga cararo, maadaama dictatorka uu ka warqabo in dhulka xaggiisa ay dad careysan joogaan. wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu halkaas iyo badda wada ka furto, wuxuuna diyaarsan doonaa maraakiibta raaxada ah asagoo uga boqooli doono halkaas iyo Jana. laakiin nasiib darro, aktarada markasta way ka warqabaan xogtiisa oo waxay isku agaasimi doonaan 3 qaybood oo kale ah in gabdhaha qaybaha lagu diyaariyo markabka dhexdiisa, halka aktarka qusaaga ana badda hoosteeda ka soo gali doono, halka aktarka sniper-ka iyo aktarka weynka ana ay doomo ku soo qaadan doonaan halkaas iyo badda. halkaasna waxaa lagu wada kulmi doonaa badda dhexdeeda, halkaas uu ka bilaabo doono dagaal aad u qaraar oo aad iyo aad waqti badan qaata, waxaana ku dagaalami doonaa askarta aktarada ah. dagaal dheer ka bacdi, aktarka waxay ku guuldareysanayaan inay si fudud u qabtaan laadarka maadaama rag tababaran ay gudaha ku jiraan. halkaasna waxaa iskaga carari doona dictatorka oo doon ka qaadan doona maadaama markabka loogu imaaday. kabacdi cabaar markuu socdana waxaa u imaan doonta helicopter, halkaas ayuuna ka qaadan doona helicopter asagoo isku dayaya inuu aado halkaasi Jana. laakiin sheekada sidaa mooda ma aha, oo aktarada ayaa isku bedeli doona ciidankii dictatorka uu filanaya inay meesha ka badbaadiyaan, waxayna noqon doonaan aktaradii oo helicopterka la soo wareega. halkii uu Jana aadi lahayna waxay aktarada usoo qaadi doonaan laadarka dowladka ama banaanka caasimadda, halkaas ay joogaan shacab badan oo ku xasuuqay intuu talada hayay. markii la soo gaaro aagga shacabka ay joogaanna meeshii diyaaradda laga deji lahay waxay kasoo tuuri doonaan helicopterka, halkaasna waxaa ku feefeena doona dadka shacabka oo xasuuqaya waqtiga dheer. halkaasna waxaa noogu dhammaaday filimkii Six Underground oo aan maanta kusoo qaadanay qiso cajiib ah, qisadaasoo ka turjumaysa in dictator walba mar waqtigiisa dhammaan doono. daawada aad umahadsan tahay la socodkaada, waxaan ka codsanaynaa inaad YouTube subscribe noo saarto, page-kana follow aan noo dhahdo, sidoo kalena aad nagula wadaagto filimka xigo aad jeclaan lahayd inaad nagu soo biirto. si aad noola sii joogto waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo, ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar TV. daawade mar waliba waxaad naga heli doontaa warar sugan, short film